بسم الله الرحمن الرحيم maanta barnaamijkeena arrimaha bulshada waxaan jeclahay inaan kaga hadlo ku soo qaato waxa loo yaqaan corruption-ka sidaan ognahay corruption-ku maanta adduunka meel kasta ayuu ka jiraa laakiin waa lagu kala badan yahay wadamadan imka reer galbeedka kale waxa inta badan laga qaliyaa waxa loo yaqaan corruption-ka laakiin taasi wax laga yaabo inaan la muuqanin oo la dado oo la qariyo ama si magaranaysa ay heer sare corruption-kaas u socdo laakiin ka socda dunida saddexaad aad booga duway marka maanta adduunka looma oran karo wadankaasi uu ka fiyoyo ama uu ka caafimaad qaba waxa loo yaqaan corruption-ka marka waxa kale ku xidhan tahay sida la dawladuhu ama ummaddu ay ula dagaalanto oo ay dadka loo wacyigeliyo marka inta badan dadku waxaad arkaysaa marka la soo qaado corruption in wadamada qaaradda Afrika kale lagu shaabadeeyo inay wadamo corruption dad corruption iyo ummad wada corruption laakiin taasi sida maaha waxa weeyeen habka loola dagaalamayo ayaa ka duwan habkan ay ula dagaalamayaan wadamadan horumaray marka maanta waxaan jeclaynaa soo qaato 10 qodob oo si ilaahay wax lagu joojin kara ama wax laga qaban kara ama lagu yareyn kara waxa loo yaqaan corruption-ka qodobka lambarka koobaad waxa weeye in la siiyo shaqaalaha u shaqeeya dawladda ama shirkadda u shaqeeya mushaar ku filan way qofkii bilaadanka hadii uu helin mushaar ku filan oo uu noloshiisa ka fikirayo oo ubadkiisa iyo biilkiisa iyo kiradii guriga ka fikirayo way adkaanaysaa marka inuu ka fogaado waxa loo yaqaan musuqmaasuqa marka aad bay muhiim u tahay magarasa dadka u shaqeynaya dawladda ama qofka ku shaqeynaya adigaba ama qofka shaqaalaha inuu helo mushaar ku filan si uu uga magarasa uga marmo oo wax la leeyahay magarasa waa musuqmaasuqa way qofku markuu mushaar ku filan helayo wuxuu hadii jeer u xilanaya ama uu ilaashanaya mushaarka ku filan ayuu hadii jeer ilaashanaya marka corruption ma sameyn karo laakiin markay noloshiisa ay u baahi markay jirto ay lacagna meeshii uu arkayo ay soo maraysa xafiiskiisa ama meeshii marka uu joogay ama lacag ay gacmihiisa soo galayaan way fududaanaysaa marka qofku lacagtii isticmaalo oo hab qaldan marka uu isticmaalo marka aad iyo aad bay muhiim u tahay magarasa in shaqaalaha la siiyo mushaar ku filan lambarka labaad waxa weeye xafiisyada dawladda dadka ka shaqeynaya waxa weeye in la kordhiyo oo shaqaalo noqonaysa shaqaalo ku filan oo shaqada qaban kara waxaad arkaysaa xafiisyada dawladda gaabis baa ku jira shaqadii waxa jirta shaqo yaraan baa jirta waxa kaloo arkaysaa dadkii shaqada ka shaqeynaya professional intooda badan aan ahayn oo aqoon ku filan aan lahayn marka aad iyo aad bay muhiim tahay magarasa in dadka la shaqaaleysiinay noqdaan dad shaqada ku filan shaqadiina qaban kara awoodeedii aqoonteedii kartideedii iyo mas'uuliyadeediina dad la waa inay noqdaan lambarka saddexaad waxa weeye haddii ay suura galayso in qabka la isticmaalo waxa loo yaqaan online oo kale oo online marka la isticmaalayo way adkaanaysaa qofka inuu sameeyo magarasa musuqmaasuq waxa la ogaanayaa qofkan shacabka lacag soo diray inta ahayd wuuna cadeyn kara qofka hadii loo baahdo marka ay tahay magarasa habka loo yaqaan online-ka ama waxa lagu kala iibsanayo ama xafiiska dawladda waxa looga baahdo hadii qofka marka online u isticmaalo meeshii wax laga inay lacag la arag marka qofka shaqaale inuu musuqmaasuq sameeyo marka waa adkaanaysa marka hubkan casriga teknolojiyada cusub ee loo yaqaan online-ka lacag lagu kala gudbiyo lacag lagu bixiyo ama transaction-ka waxa loo yaqaan in kaalaftiisa la dhiirigeliyo oo la isticmaalo aad iyo aad bay muhiim u tahay waana waxyaabaha ka mid ka ah ee yareyn kara waxa loo yaqaan musuqmaasuqa qodobka afraad waxa weeye haddii ay markaa dhacdo magaraysaa in musuqmaasuq la helo waxa weeye qofkii markaa lagu helay musuqmaasuqa ama shirkadii lagu helay ama xafiiskii lagu helay in la abaal mariyo la ciqaaba aad iyo aad bay muhiim u tahay way haddii taa la sameeyo waayo oo la iska daayo markaa shaqaalihii oo dhan waxay helayaan dhiirigelin ah inuu qofkii iska sameeyo musuqmaasuqii sharcigiina la ixtiraami waayo oo markaa uu noqdo magaraysaa qof badee intuu markaa awoodiisa wuxuu sameyn kara inuu sameeyo marka aad bay muhiim u tahay magaraysaa habkaasi in la dhiirigeliyo qodobka shanaad waxa weeye haddii ay suura galayso waxa weeye in la isticmaalo wax loo yaqaan kamarada oo xafiisyada lagu dhajiyo waayo markuu qofkii shaqaale meesha jooga ama dadkii meesha ay magaan ogin meesha inay kamaradi socoto way adkaanaysa marka in lacag la isku dhiibo lacag la siiyo oo xitaa uu noqdo musuqmaasuq mid furan oo dadkii wada arkayaan inuu noqdo way yaraanaysa marka habkan magaraysaa kamaradaha waxaad arkaysaa wadamada horumaro kale meelaha muhiimka oo kale waxa lagu isticmaalaa kamaradaasina jeer waxay sugayaan inay ilaaliyaan inuu meesha musuqmaasuq ka dhaco lacag la isweydaarsado ama wax la mid ah marka meesha yimaadaan marka aad bay muhiim u tahay magarasa in xafiisyada dawladda haddii ay suura galayso la isticmaalo waxa loo yaqaan kamaradaha si loo ilaaliyo oo ama loola socdo waxa ka socda meeshaasi ama xafiiskaasi lambarka lixaad waxa weeye in habkan dadka loo shaqaaleysiinaya uu noqdo magaraysaa hab cadaalad oo kor loo qaado waayo haddii qofkii markii horeba shaqadiisa uu ka mid yahay musuqmaasuq isna marka dambe musuqmaasuq uu ku shaqeynaya marka xafiiskii wada musuqmaasuq ayuu noqonaya marka way habkan shaqaaleyntu ay noqoto hab magaraysaa transparency hab furana hab cadaaladaysan
hab ku dhisan aqoon iyo professionalnimo iyo inuu noqdo aad iyo aad bay muhiim tahay taasi waxay keenaysaa haddii qofka isagu musuqmaasuq meesha lagu keenay de musuqmaasuq bisna qayb kasii noqonaya marka hadii jeer waxaa muhiima in taa laga fogaado oo uu noqdo magaraysaa habkan shaqaaleyntiinu magaraysaa hab furan oo si cadaan lagu dhaco qodobka toddobaad waxa weeye aad iyo aad bay muhiim tahay inay meediyadu ka qayb qaadato oo way wadamada waxaad arkaysaa magaraysaa programyada laga sameeya dadka musuqmaasuqa sameeya programyadaas la soo bandhigaa waa lagu fashiliyaa shacabka hadduu qofku siyaasi yahay hadduu ganacsada yahay hadduu qof caadi yahay markaa qofkii markuu sameeyo waxaasi waa lagu ceebeeyaa kadibna markaa qofkii dowladda tallaabay ka qaada shacabkuna markaa qofkaasi ama shirkadda ama xafiiskaasi ama siyaasigaasi waa laga fogaadaa marka aad iyo aad bay muhiim tahay inay meediyaduna qayb ka qaato laakiin dhinaca kale waxaad arkaysaa inay meediyadii ka baqayaan tusaale kale dowladahoo kale oo isleeyihin magaraysa haddii aad corruptionkii qayb aad tiraadid barnaamijyo ku saabsan soo saaro bard waxaa loo yaqaano corruptionka in waxbay ka baqayaan been laga qaada liisanka ama rugsada lagala noqdo waxaa kaloo dhacaysa in medyada lafteedu qaybo kamid ayba dadka markaa corruptionka sameynaya dee dowladda oo kale hadday noqoto inay lacag ka qaataan marka ayba soo babadhigi karinba markaasi ama marka aad iyo aad bay muhiim tahay magaraysa inay qaabka medyaduna ama inay qaataan waxaa loo yaqaana responsibilityga oo ay qayb ka noqdaan habkan la dagaalanka musuqmaasuqa oo wixii arkaan ay soo bandhigaan oo ummadda magaraysa u iftiimiyaan oo ay noqoto magaraysa shaqo ay si fiican u hufan uga soo shaqeeyaan programyo la hubo wax cadayna inay banaanka soo dhigaan aad iyo aad bay muhiim tahay marka muhiimadda medyaduna waxa weeye inay qaybtooda qaataan marka haddii qaybta ayguna qaataan si fudud waa markaa loola dagaalami karaa musuqmaasuqa lambarka sideed waxa weeyaan had iyo jeerba in habkan in marka magaranaysaa shaqadu ay noqoto magaraysaa shaqo hufan oo tusaale oo kale qofkii shaqaali u yimaado waqtiga shaqada loogu talagalay oo shaqada ka baxo oo ay noqoto waqti cayiman iminka meelaha qaarkood xafiis dowladda waxaa arkaysaa inuu qofkii shaqaali imanaya waqtigu doono ama waqti aada u dambeeya oo waqtigii loogu talagalay aan ahayn ama markuu yimaado markiiba uu iska baxayo waxaa kaloo arkaysaa inuu qofkii shaqaali meeshiiba imanaynin marka taasina waxay noqonaysaa magaranaysaa in qofkii markaas kale loo raadsado daniin laga laha markaa laga fushado ama gurigiisa loo raadsado ama meelo kale lagula ballamo marka taasina aad bay muhiim tahay magaraysaa in habkan shaqaalaha ay u shaqeynayaan la controlo oo hab system ay loo sameeyo qofkan shaqaalaha lagu controlayo inuu shaqadii waqtigii loogu talagalay yimid in waqtigii loogu talagalayna uu baxay shaqadiisina uu si fiican u qabsaday waa wadamada qaarkood arkaysaa in qofkii shaqeynaya 8 saacadood joogtaa oo intuu 8 saacadood u shaqeeyo meelaha qaarkood aad bay gaartay marka haddii shaqadiisa uu yimaado magaranaysaa inaan si fiican loo shaqeyna taasina waxaa qayb ka noqonaysaa marka meeshii musuqmaasuq soo galo qodobka sagaalaad waxa weeye in lala dagaalamo waxa loo yaqaano laftiga sixir bararka waayo sixir bararku qayb buu ka yahay waxa loo yaqaano corruptionka waxa laga yaabaa inay shirkado waaweyn iyo dadka siyaasiyiintu ay heshiiyaan marka magaranaysaa meeshii yimaado waxa loo yaqaano sixir bararkana inta badan waxaa ka faa'iida dadka lacagta leh waxaana ku dhibaatooda dadka masaakiinta waxba haysan marka sixir bararka inta badan waxaa sahla oo keena markay timaado inay wada shaqeeyaan nimanka la taajiriinta iyo nimanka siyaasiyiintu haddii labada qaybood heshiiyaan dadkii masaakiinta meesha ay ku baaba'ayaan dadkii tijaariinta lacag badan bay helayaan qoladii siyaasiyiintuna lacag badan oo musuqmaasuqa ama corruption ayay qaadanayaan marka in waxaan sixir bararka ama inflationka loo yaqaanona in la xadeeyo oo la ilaaliya aad iyo aad bay muhiim tahay qodobka ugu dambeeya tobnaad waxaa isleeyahay in la dhiirigeliyo oo la sameeyo system sharci ah oo qofka shaqaali u ogaado hadduu sameeyo magaraysaa musuqmaasuq oo lagu helo in la ciqaabayo oo uu ogaadana ciqaabtaasi intay leeg tahay ma 10 sano lagu xukumaya ma 5 sano waa in cadata marka way xafiisyada dowladda ee ah u qaabilsan dhinaca sharciga in la tayeeyo oo la dhiirigeliyo oo shaqaale arrinta aqoonteeda leh oo geega laftooda ka madax banaan inay sameeyaan wax loo yaqaan musuqmaasuqa in la helan aad iyo aad bay muhiim u tahay waana ta ugu muhiimsan haddii aan dadku aanay ka baqin sharciga una sharciga noqon ka sarreynayaan waxa ay adkaanaysaa markaa in laga cabsoodo ama laga baqo markaa corruptionka waa lagu dhirinaya marka muhiimaddu waxay tahay in xafiiska dowladdana ama xafiiska sharcigana in la tayeeyo oo ay noqdaan dad shaqadaasi u jajaban qaban kara hawshaana kasoo bixi kara 10 qodob ayaan isleeyahay waxbay ka qaban karaan in la diyaariyo waxa loo yaqaan musuqmaasuqa kullee waa inta aniga fikirkayga la tahay dad badan waxaa jira iga aqoon iyo aqlibo badan marka dhammaantiin boolaalayaal waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkeenina maanta inta ayuu noogu dhan yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin